بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad naga daawanaysaan waa Janagala for official. haddaan nagu cusub tahay subscribe, like, share, comment inta waa xaqiini. walaalayaal, qof kastoo muslim ah wuxuu wax weydiistaa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa qof walba meesha uu hiigsan ay gaarsiin kara. ka sokoowna walaalaheena Soomaaliyeed wayna gaarsiin karaan. walaal waxaan ka codsanaynaa in aad noo share gareyso, like iyo share iyo comment ba inta waa xaqiini. walaal idinka ayaan wax idinku nahay. barnaamijkan caawa wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore aan wadi jiray. caawa waxaan halkan idinkugu hayaa su'aalo diini ah. haddaba walaal waxaan ka doonayaa naftaadana u faa'iidee, naftaydana inoo wada faa'iideeya, nafsadeena aan wada faa'iideysano. su'aalahan diiniga ah markaan idin soo gudbiyo waxaan idinka doonayaa in aad commentiga kaga soo jawaabtaan idinkoo mahadsan. rabbi ha idin karaameeyo, rabbi ha idin sharfo. marka walaalayaal, su'aalahan aan caawa wato waa 4 su'aal ama 5 su'aal, taqriiban 5 ama 4 su'aalood. wax saas u badan ma aha. qof walba muslim ah waxaan ka codsanaynaa ee Soomaaliyeed, waxaan idinka codsanayaa commentiga jawaabta ka soo bixiya haddaad garanaysid waay. su'aasha koowaad waxay u dhacaysaa sida tan: sheeg qofka muslimka ah marka diya la yiraahdo, ninka rijaalka ah ama ragga ah wuxuu leeyahay haddii gacan ka xaq daran ay disho 100 halaad. gabadha muslimadda ana waxay leedahay 50 halaad. ninka gaalka ah imisa ayuu leeyahay gacan ka xaq daran hadday disho? aan ku celiyo su'aasha koowaad: qofka muslimka ah wuxuu leeyahay haddii ninka nin rag ah uu gacan ka xaq daran ay disho wuxuu leeyahay 50 halaadood 100 halaad. hilmaan hadal kuma jira 100. gabadha muslimadana waxay leedahay 50 halaad. ninka gaalka meequu yeelanaa waa marka diinta ay qabtaa meeqa ayuu yeelanayaa? waa su'aasha koowaad. tan labaad waxaad sheegtaa saddexda qof ee ugu horeeya ee naarta lagu tuurayo. ilaahay ha naga nabadgeliyo, ilaahay ha naga najeeyo, ilaahay naarta ha naga badbaadiyo inta muslim ah. ilaahay naarta, laakiin ilaahay ayaa quraankiisa ku sheegay 3 ayaa naarta lagu tuuraya, ugu horeeya lagu tuuray. saddexdaasi waxa ay kala yihiin iyo magacyadooda inaad noo soo sheegto ayaan ka doonayaa. waa dila faantaan u malaynayaa. su'aasha saddexaad: waxaad sheegtaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam markuu uu Taa'if uu aadayay, Taa'if uu aadayay waxaa la socday nin saxaabada ka mid ah. ninkaasi magaciisa ayaan ka doonaynaa in aad soo sheegto. aan kugu celiyo: nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam markuu Taa'if uu aadayay waxaa la socday nin ka mid ah saxaabada. ninkaasi magaciisa ayaan ka doonaynaa in aad soo sheegto. su'aasha xigto: waxaad sheegtaa saxaabigii dagaalkii Uhud oo ku shahiiday ee haddana meydkiisii malaa'igta dhaqday. magaciisa ayaan ka doonaynaa. waxaad sheegtaa saxaabigii dagaalkii Uhud ku shahiiday magaciisa iyo sababta ay u dhaqday malaa'igta ayaan ka rabnaa inaad nala soo wadaagto. su'aasha xigta: waxaad sheegtaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxaa salaada u aadaami jiray mu'aadin badan, balse laakiin waxaan ka rabnaa
labada uga caansan magacooda inaad noo sheegto. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam salaada waxaa u aadaami jiray aadan badan, laakiin waxaan kaa rabnaa laba ka mid ah magacooda in aada noo sheegto. haddaba walaalayaal su-aasha waan isla wada garanay, waxaan idinka rabaa jawaabtooda oo sax ah inuu ilaahay idin haleelsiiyo. waxaan idinka doonaynaa in aad jawaabta saxda ah aada nala wadaagtaan. halka aad ka daawanaysaanna waa Jana Galafoor Official. haddaba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين